kala yiraahdo Idris nin weynaan u maleynayay laakiin waa qof la fac ah oo la fil ah in uu dhaqaale uu ka raadiyo. waxaan saakay aan miiska u fadhiyaa inaan falanqeeyo ama aan ka hadlo arinta Bilaal Bulshaabi oo ah madaxweynaha TikTok oo dhawaantan ka badbaaday fal isku day dil ah sadaqadiisa aan baxsatay wiilka dhalinyarada ah iyo ninkii markaa saaxiibaday ahaayeen oo la socday ee Cazorla oo la dhaawacmay asigana oo dhibaato halka ay ka soo gaartay oo hadda labadoodaba ku sugan dalka Turkiga ayaa xurguf ama dagaal xagga social media ku dhex maraya la hadal haya oo bulshada oo dhan baa hadal haysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan waa anigoo walaalkiin Maxamed Xasan. YouTube-ka daawanaysaana waa another one tea time. haddii aad cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo channelka gambaleelkana furato si ay kusoo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya. Videogana like saar waadna ku mahadsantihiin mar walba garab istaagina joogtada sida caadada iyo dhaqanka ahaydna kusoo dhawaada barnaamijka dhabka hadal oo sidaan hordhac barnaamijka ba idinkugu soo sheegay aan ku falanqeyn doono madaxweynaha TikTok Bilaal Bulshaabi iyo saaxiibkiisii ninkay dhibaatada ay isla soo gaartay ee Cazorla ayaa hadal hayntii ugu badneed shalay ilaa iyo daraad dadkii dhan ay hadal hayaan. labadaa nin waa laba nin oo saaxiibaha sida ee dadkoo dhan og yihiin. dhibaatada soo gaartayna labadood bay soo wada gaartay. Cazorla weliba hadda xabadii way ku jirtaa oo waxaa la leeyahay qaska ayaa xabad u fadhisaa. ilaahay ha u fududee sidii looga soo bixin lahaana ilaahay ha sahlo. labadood hadda Turkiga joogaan midka kalena wuxuu eedeynayaa oo wuxuu leeyahay sidaasay ahayd iyo sidaasay ahayd. inta aan barnaamijka aan falanqeyntiisa u gudagelin marka hore waxaan rabaa ina ila aragtaan ama ila daawataan Bilaal Bulshaabi iyo Cazorla markaasina wixii aan ka dhihi lahaa ayaan ka dhahaa sida idinkana commentiga ayaa xor iyo xalaal u tiino fikirkiina ku dhiibanaysiin. marka hore waxaan rabaa inaan ku hormaro Bilaal Bulshaabi wuxuu ka yiri qof ka weyn ayaan ahay anigu ninka la yiraahdo Idris nin weynaan u maleynayay laakiin waa qof la fac ah oo la fil ah in uu dhaqaale uu ka raadiyo beenta iyo propagandada fiyuusna ka raadiyo dadka ehelka ah ee isaga dhow asiga. marka digniinaan siinayaa runtaan idiin sheegaa waa been abuur waxa meelaha la wadwado waa been abuur haddayna waa idiin sheeg haddana waa idkugu celinayaa waa wax kama jiraan wax ka jira haba yaraatee ma jirto. nooc dabakaaya furtana waa ka weynahay nooc ilaahay kunsanaada ku hamiyo inuu kareemo qasqasana intaaba waa ka weynahay. almuhim ninka la yiraahdo mawliidaan rabaa inaan waxa idinkaga sheego. mawliid shalay ani hoosteeda ku noolaa waalidkiis lamuusan joogin guriga waa aragteen Bilaal oo ahaa oo ka garnaqsanayo Idris Bebe. Idris ayaa shalay si live ah u soo saaray wiilka Cazorla ay ishayaan Bilaal Bulshaabi. runtii Bilaal Bulshaabi wuxuu leeyahay eeda la ii soo jeediyay oo ah inaan luunsaday lacag oo aan rabay inaan ku furto dukaan waxyaalaha dumarka ee isku qurxiyaan lagu gado inay arintaasi tahay arin beena wuu iska fogeeyay macnaha kuma jiriyo dhaani waxaas shaqadeedana ma waana ka weynaa nin saacadan kareemo qasqasa ama tabakaayo furto waa ka weynahay. laakiin wuxuu leeyahay dad badanaa jiro oo arintaa dhaqaale ka dhex raadinayo. horta Bilaal waa wiil dhalinyaro runtii oo aad u wanaagsan intaan ka arko aniga isma naqaan weligeen islama hadlin laakiin baraha bulshadan ka aqaan waxyaalo badan oo wanaagsanna asigoo sameynayaan arkayay. tusaale ahaan in dadka masaakiinta uu lacag u aruuriyo kadibna uu gaarsiiyo. horta runtii qofka markuu u istaago bulshadiisa ee uu qabanayo waxyaalo badan oo wanaagsan mucaarad iyo muxaafid intaba uu yeelanaa sababtoo ah dad badan oo wanaaga aan rabinaa jiro oo adduunyadan aa arkaysaan ku nool oo wanaagaba dhibaayo qofka wax qabanaya dhibaayo rababa in ay aakhiro u diraan. Bilaal inuu qalbi nadiif yahay inuu wiil dhalinyaraa oo wanaagsan yahay
waxaa maragmadoonta ah oo micnaha aanba u baaneen in wiilkaasi la fafasiro arrintiisa. isku daygii dilka ahaa ee bishiina soo dhaaftay magaalada muqdisho loogu geysanayay bilaal siduu ilaahay ugu badbaadiyey subxaana wa tacaala. tiisi ma aysan galin oo maalintaasi bilaal in uu aakhiro aado ama god uu u hooydo ilaahay ma xukminin, laakiin waxaa fahmay sadaqadu waxaa la dhahaa waxay furataa wad ii geeri. sadaqo waxay furataa wad ii geeri. in bilaal bartaa xabad looga dhufto ee bartaasi ka baxdo waa dareemi kartaa qof meesha xabad kaga dhacday meeshaas ka baxday waa dareemi kartaa saameynteeda. marka ani waxaan leeyahay bilaal daacadnimadiisa iyo sadaqada uu bulshada u aruurinaa xitaa haddaysan jeebkiisa ahayn, xitaa hadduu lacag asiga ka goosanayo markaas waa servicekii, waa adeegii uu u sameynaya. diyaaraduu raacaa, tusaale ahaan dhowr mar wuxuu aaday gobolada Gedo, Baayi, Bakool, waxaasoo dhan uu sameynayo service. wuxuu dhaqaalaha ku baxayo ninkan, hoteeluu degaa, diyaaraduu raacaa. way ogashahay diinta in qofka u adeegayo masaakiinta in xoogaa khidmad ah oo micnaha oo asigana uu ku noolaaday inuu ka jarto. wax diidaya male, sababtoo aninkan wuu dadaalaa, diyaaradu tikiduu goosana, wax walbuu soo dadkiyo micnaha wax gaari lahayn wax gaarsiinooya, asiga u baryo tagoya, asiga hoshii wado. marka wiilkaasi runtii waa wiil aan isleeyahay xaqiiq daacadnimo micnaha taasaa aniga aan ku cadaystay. qofka biniaadamka waxaa loo baahaya inuu indhihiisii iyo maskaxdiisii iyo caqligiisaba waxay qabtaan uu ku miisaamo, sababtoo ah bilaal dhibaa gaaray. dhibka gaaray siduu ilaahay ugu yasiray. hadduu qof xun aan lahaa maalintaas ilaahay ummadda wuu ka dhex saari lahaa, laakiin inuu qof wanaagsan yahay ayaan isleeyahay. bilaal weli adduunyadaa rabtou ku sii joogaa. wiilkaa Kazoorle la yiraahdo mid waa qabaa ani. Kazoorle iyo bilaal lacag baa leesugu daray oo bulshada usoo dirtay maadaama dhibaatada ay isla gaartay, labadood ay saaxiibo ahaayeen. oo weliba la leeyahay bilaal dhaawiciisa micnaha haddii uu ninkan la socon lahayn inuu geeriyooda macquuleed, ilan wuu sii jeedi ninkaana soo jeediye oo bilaal bastoolada laguga micnaha dadka siday dhahayaan. aniga ma ihi qof oo hadda markaasi taagnaa meesha oo wax walba ogaa, laakiin sida dadka ay leeyihiina sidaas ah. marka bilaal wiilka ani waxaan qabaa in uu qoonsaday lacagta ninkan ay kusoo dhacayso mar walba inuu maamulayo. qofka bini'aadamka ma jeclo in jeeb kale laga maamulo, wuxuu jecel yahay wax walba inay jeebkiis ku jiraan. marka bulshadana dad badanoo waxaa jiro warxumo tashiil ah, maadaama bilaal uu leeyahay cadow hoose oo badan oo la ogeyn, qaarkood qarsan qaarkood la ogyahay, in wiilkaa la buufiyey oo la yiraahdo cunugan yariiska wax walba iska cunooyo, adiga maxaa kaa soo gaaro. marka bulshada tookadaada ama markaaga bulshada inaa u qeyli dhaamise si adiga wax aad leedahay akoonkaaga lagugu soo diro. soomaalidu waa dad calool jilicsan, marka xaaladan oo kale taagantahayna way ku kacayaan in laga soo dhaadhiciyey oo maanta asiga oo dhibaato gaartay aan la dafiri karin, laakiin inuu asiga si gooniya dhaqaalo u aruursado laga dhaadhiciyey, micnaha lagana taliyey arrintaasi oo la yiri barnaamij sameyso, dad badanaa ku caawinayo, lifea soo galee, gifti badanaa helee, lacagaa sameynay. ma ahi in wiilkaasi aan target ama dhibaato ku ahay, laakiin aniga aqligeyga sida uu isiiyaa wuxuu yahay in wiilkaasi la raadinayo sidii dhaqaalo ku sameyn lahaa. bulshada Soomaaliyeedna wax looga qaadi karo waa in la calool jilicsado, waa in qofka lasoo bandhigo asoo dhibaato ka cawanayo, asoo in la xumeeyey sheeganayo. marka dadka Soomaaliyeed marka dhib jiro way gargaaraan, oo weliba qofka markaa dhibka haysto way u gargaaraan. marka Kazoorle in bulshada uu dhex galo, kadibna bulshadaasi dhibaatada uu qabo uu u sheegto. dhibaato way jirtaa, cid dafiri karta male, wiilka uu dhaawacan yahay, xanuunahayo. ilaahay waxaan ka rajeynaa ama uga baryaa wiilkaasi inuu caafimaad siiyo, sidii wax ay u socdaanna ay noqdaan si wanaagsan. laakiin aniga marka arrintaa aan fiiriyo waxay ila tahay wiilkaani inuu rabo
in lacag jeebkiisa uu ka isticmaalayo uu bulshada ka raadiyo ama uu ka helo marka dadka wax bixiyana waxaan leeyahay wiilka hala saacido hala abaalmariyo bilaalna aniga ma qabi inuu yahay qof xun ama wiilkaasi wixiisa xaqiisa cunay ani ma aaminsani sababtan uu aamini waayna waxay tahay bilaal intuu qabanayay indhaheenaan ka arkaynay wuxuu samaynayay bulshada siduu uga cararayay sida ilaahay uga badbaadiyey isku taygii falka dilka ahna wax walbo micnaha aan ka cabir qaadanaynaa marka waxaan leeyahay bilaal iyo wiilka waa laba wiil oo walaalaa berin way heshiinayaan dadka ruxmatashiilka inay arrintaasi basiin kusii shubin wiilka ha loo gargaaro lifeka ha lala ciyaaro gifti ha loo gado bilaalna magaciisa yaan hoos loo dhigin ama la garaafeenin sumcadda uu bulshada ku leeyahayna yaan laga wasaqeynin waa wiil yaroo dhallinyaraha hami leh horumar leh asigoo bulshadiisii u shaqaynayo cadow lahayn dad dhibaateenin ayaa la dili rabay oo sidaa arkayseen qof wax isku quuraayo male marka asxaabta quruxda badan video intaan kusoo gabagabeynaa tan iyo kulantideena dab waxaa idin leeyahay hadduu videoan kusoo gaaro like muhiim u tahay asxaabta ku xiran janalkeygana waxaan kaloon ogeysiinaa inaan rabo inaan barnaamijka ciyaaraha aan hadda kadib aan rabo inaan halkan ku falanqeeyo ama aan kusoo daro barnaamijyadeeda qeyb sportis maadaama aan ahay qof sportis oo sportiska takhasus badan u leh oo waqti badan sportiska kusoo dhex jira ugu yaraan takhasus 22 sano oo kubadda cagta qaaradda Yurub aan la socday oo aan wax badan ka ogaa taariikhdeeda sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan sportisna kusoo daro video intaan kusoo gabaynaa tan iyo kulantideena dambe anagoo isku xiiso qabno mar kale nabad